مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. صومك إلهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صوم بالله إذن واجب يالي سيدي لوgu واجب يالي كوي إذن كهريي حال إنه واجب يالي مع عقابه وانت الله عقابه دنبك الله ينقم يدي مياه مياه إلهي آيات كدنبه وحلي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إلهي وحيدين للربا إنه نلشب إيدين فضيديو صونك بوحا الإيدين فري إن نلشو إيدين فضودات تبا للي عليسنا الرب إيدين لما ربه إذن صونك عليسكم أجرو هدي سيدي الشرع والشاقين الله سمين أيو وحي إلهي ونفر يا سببت وامحي لعلكم تتقون إن منزلة التقوى قادان أسل العبادة منزلة التقوى بيكو قارسيسا يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بإلهي وارضضوا ربي جين عابدا إذن كإذن أبو ريكو إذن كهر ريبا محاو عابدا لعلكم تتقون كي تتقون. هذا أيها الأحبة وحين وباهنا رمضان اللو ديار قروبه منافقين تكهر دقالك إذا بتنعد ردارك النبي قولي يمي دقالكي دقال محل ده تبوك مركي لو بحيي تبوك والدولة وين بعد دقال قالوا هرتقي والدولة دي رومانسكا يدتك رأس الصنايع وقت قلنا وقت كل البوها ووقت كان خليج 40 هي 50 وكردعان يعني وقت السمرة حاجة يبي هاي دبتنا بالوقت كل دونه ولا غلوين يا حاجة marka ragii daacadda ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bisha sidoo socon lahaa kuwii waxay fuulaan waayeen muuminiinta ahaa waa kuwii nabiga u yimi iyagoo ooyo la ilaahay rasuulkiisa wax la saar ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuulo toona ma haysano inaanu ka hadhnana mar rabnay waa kula dagaal galayna ee waxaanu raacnana saar qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay xagga kale marka laga eegana waa waqtiga timirtu bislaato oo beeraha ay lahaayeen carabtu waqtigaas ay u bislaataa marka nimankii munaafiqiinta iyagu marmarsiiyay sameeyana way hadheen ilaahay oo qadiyadooda ka waramayaba wuxuu yiri walaw araadu al-khuruj la addu lahu udda ba ilaahay haday marka horeba iraada doonitaan haduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaar garoobi lahaayeen ba ilaahay subhanahu wa ta'ala diyaar la'aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan haddaba soomku ayuha alxibba wuxuu inaga rabaa diyaar garow wuxuu inaga rabaa diyaar garow ah inaynu u diyaar garowno manziladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soomku inay gaarsiiso inayna gaarsiiso sida awgeed ayaa salaf al-umma marka ramadaantu soo dhawaato waa ku farxi jireen تسان وفرحين بقفك مسلم كهاي ركن أركان تيسي دين تأبا قصة صعدة سوما الرئيسين الإسلام كوباينو شر ركن كتير سيئي شان أصله ووين بولي شان تأصل محاكم دها الشهادة ده هي الصلاة هي الزكاة هي صانية حج إذن ركن كم ده أركان الإسلام كي مركو صعدة قفك مؤمن كي ودي أرقروبية نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة دي سووا بشارين شري حديث الصحيح السنن النسائي كي لوح النبي يقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. نبي صلى الصحابة الله الضيّة رضوان الله عليهم أي نبي صلوات الله وسلامه وحليه ورياده رمضان بايدين تيمو نبي قولي وبالبركة سنة رمضان وبركة سنتي دمانتي
ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay buu nebigu leeyahay soon albaabada samada ama albaabada jannada waa la furaa abwaabu samaa waa la furaa acmaashiina la aqbalaya abwaabuljanna waa la furaa iyadoo laydinku dhiiri gelinayo abwaabta jaxiimana ama jahannamana waa la xidhaa shaydaamada waaweyn ee idinkiin fogeynayo dhanna waa idinka qabanayaa bishaas baa la yidhi shayaadiintu waa ijaaza compulsory leave baa la siiyaa kuwa waaweyn oo dhan waa xidhan yihiin bisha tan iyana habeen baana ku jira buu nebigu yidhi 1000 bilood ka khayr badan 1000 bilood cibaadadood waa intee oo 280 sannadood habeen ka khayr badan baa jira oo bishan ka mid ah man xurim qofka laga manciyey heli waaye khayrkeeda ramadaanta ama habeenka khayrkeeda qofka waaya faqad xurim kaasi khayr heli maaya baa la yidhi haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bushaaraynaya saxaabadii buu bushaaraynaya waxaan ugu bushaaraynayaa waqti aan waqtiyada la mid ahayn inuu soo socdo nimanka dujaarta ah ee seasonalka wax iibiya waqti kasta qalabkiisa iibiyaan maalan markay ciidda rabaan inay wax iibiyaan ciid gaaleed ama ciid muslim ha noqotee ciidda waxa soconaya oo dhan bay soo diyaariyaan waxaan u arkaa waqti yar oo aan badnayn oo aada loo faa'iidi karaa inuu jiro faa'iidooyin badan la helayo qofka muslimka iyo marka bisha tani waa bil aada u khayr badan waa bilu qofka muslimkii maca allaahi jumlah uu kula baac mushtaraynayo waa bil aad dhalin karto dee 280 sannadood baad habeen dhalin kartaa 280 sannadood cimriga wixii aad cibaado samayn kari lahayd ayaa habeen ka mid ah ramadaanta aad samayn karaysaa idan waa bil aan waqtiga intiisa kale kuula mid ahayn saa daraaddeed qofka muslimkii wuu diyaargaroobaya bishan weynadeeda waxaa kuu tilmaamaya laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa soo hijrooday dabeetana طalxa bnu cubaydillaahi iyo saxaabigii la odhan jiray bay la degeen labada nin way jihaad galeen markii ay jihaad galeen ayaa midi shahiidnimo qaatay midkii kale waa laba nin oo soo islaamo islaamnimadoodu fiicnaatay oo nebiga la dagaalgalay mid baa dagaaladii shahiidku noqday kii kalena sanad kaluu sii noolaaday bishii ku xigtay ramadaanna waa joogo waa dabeetana si caadi u geeriyooday طalxa bnu cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi riyaan arkay riyadu sideedaba qad takuunu xaqan waqad takuunu khusacbalaat yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya nubunimadii waxaa ka hadhay waxaa ka mid a maxay alru'ya saalixa marka riyadu dhabna waa noqotaa baatil iyo iska dhadhabna waa noqotaa saxaabigana wuu riyooday wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii ay gelayaan dabeetana saddexda yadaanu ahayn buu leeyahay aniga iyo labadii nine kale kii dambeed dhintay ee aan jihaadka ku dhimanin ayaa la yidhi soo gal kii baa la horraysiiyo horgalay dabeetana kii shahiidka ahaa baa ka dabagalay anaa isidhi galo adiga weli may gaadhin wakhtigaagii baa la yidhi buu yidhi markaa wuu soo baraarugay riyadii baa faaftay nebigaa loo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaa ula yaabaysaan waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow labada ninkii aanu islahayn dee waa dadaal badan yee shahiidoobay kii kala jannada ka horgalay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi alaysa qad makatha hada bacdahu bisana oo kan miyaanu sanad ka nolol dambeyn buu nebigu ku yidhi markaasaa la yidhi haa waa ka nolol dambeeyey oo miyaanu ramadaantii dambe isagu soo gaadhin buu nebigu ku yidhi haye waa soo gaadhay baa la yidhi oo sooma soomin oo ma salaadin oo masaajidkan kuma tukanaynin sanad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi haa famaa baynahumaa abcadu mima bayna alsamaa'i waalardi buu nebigu ku yidhi xadiidka kan ibnu maaja soo warinaya culimadana saxiixa ku tilmaamayaan wuxuu nebigu leeyahay labadooda ajarkooda inta udhaxaysa cirkiiyo dhulka inta udhaxaysa in leeg baa udhaxaysa yacni ninkii
shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolo ay ka mid ahayd uu nebigu leeyahy war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nebigu leeyahy oo ramadaan taa ma tukanayno ma soomayno waa kan sida awgeed axaadiis badan baynu nebiga ka haynaa uu nebigu leeyahy qofka ramadaan soma iimaanan waxtisaaban isagoo iimaan iyo ixtisaab yacni mu'minan billaahi si dhaba u rumaysan wa mukhlisan ku dhinta camalkaa soonkaa sameeya gufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisa horaa la dhaafaa buu nebigu yihi waa ninka sooma waman qaama ramadaan buu nebigu yihi ninka habeenka ramadaan istaagana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi haddana nebigu wuxuu yihi waman qaama leylata alqadr habeenkaa gaarkaa ninka isa sii taaga iimaanan waxtisaabanna isna dembigiisii hore waa la dhaafaa taa macnaheed waxa weeyaan ayuha alaxiba ramadaan waa fursa waa tijaara raabixa bilaa shak waa tijaara ilaahay lala baac mushtaraynayo oo maxaa lagula baac mushtaraynaya ilaahay biliimaani walacmaali saalixa iimaan iyo camal suuban waa fursad qof kasta oo muslim oo dembi ku raraa uu dembiga iska rogi karo waa misfaa yacni waa xamaam ruuxiya waa meel lagu qubaysto lagaga qubaysto wixii dembi ku soo galay imise ishaadu wax xun aragtay imise dhegtaadu wax xun maqashay imise carabkaagu wax xun ku hadlay imise xisaabi uun waxaasoo dhan qaabkii la ysaga maydhi lahaa weeyaan sida awgeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka fuulay isagoo leh aamiin 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 saxaabadii waxay dhahen maa kunta tasnacu haada ilaahay rasuulkiisiiyo saan maad yeeli jirine maanta maxaa soo kordhay mimbarka markaad fuulayso si caadi umaad u fuuli jirtay laakiin intaad xabad fuushay inaad aamiin tidhahdo kala fo aamiin oo aamiin tidhaahdo maxaa isbedelay bay nebiga weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi jibriil baa ducaynayay ama saan idhaahna habaartamayay aniguna aamiintaan u lahaa buu nebigu leeyahy nebi maxamed iyo jibriil maxay isugu tageen ee midna uu ducaynaya midna aamiin u leeyahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu yidhi ragima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu falam yugfar lah ragima anf waa eray carabta ku isticmaasho sankiisaa bowdhoobaya ala soomaalida ku tara afka u dhac afka ha u dhaca buu leeyahay ninkay ramadaan u soo gashay ee haddana dembigiisa la dhaafi waaye afka ha u dhaca buu jibriil leeyahy carabtu waa sanka ha u dhace markaasuu nebi maxamedna leeyahay aamiin jibriil baa haddana wuxuu yidhi afka ha u dhaco ninka maxay agtiisa laygu sheego nebi maxamed oo agtaada inta lagu sheego calayhi salaatu wasalaam kugu saliyi waaya nebiga ku saliya dabeetana nebigu aamiin buu ku yidhi markaasuu haddana wuxuu leey ragima anfu cabdin adraka waalidayhi aw axadahuma afka ha u dhaco qofka labadiisii waalid soo gaadhay ama mid iyagoo yacni gaboobay falam yudkhil iljanna oo janno ku geli waayey labadiisii waalid samafalka iyo axsaanku uu samaynayo kaasina afka ha u dhaco xadiidkani wuxuu tilmaamayaa 3 camal oo janno lagu galo midi waa waalidka iyo ixsaanfalkooda midna waa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka kalena waa ramadaan nimay u soo gashay oo haddana dembigiisa la dhaafi waayey yani 3 qof la habaarayo mid waa ninkii nebi maxamed ku salli waayey midna waa ninkii waalidkii u samafali waayey ka saddexaad waa maxay qof ramadaanna ay u soo gashay ramadaanna ka dhamaatay isagoo aan weli dembigiisa la dhaafin yani ma istafaada min ramadaani shay-a ramadaan aan waxba ka faa'iidin yani ninka ramadaan wax ka faa'idi waayey man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu leeyahy leylat lqadri iyo wixii ninka taa khayrkeeda laga xaaraam yeelay khayrkeedu uu waayey kaasi khayr heli maaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam
sidaa awgeed ayuha alxiba markaa waxay leeyihin waxaynu u baahanay inu rabadaanta u diyaar garowno